ayaa ka dhalatay ciidamada Itoobiya oo la geeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kuwaas oo dadka qaarkood ay sheegeen inaysan qayb ka ahayn howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM inkastoo saraakiisha ciidanka AMISOM ay ka howlgala deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee ciidanka dowladda Djibouti ay wax war ka soo saareen arrintaasi saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa soo shacbaxay dood ku aadan ciidanka Itoobiya sababta keentay in xilligan la geeyo magaalada Dhuusamareeb oo kamid ah meelaha ugu amaanka badan Soomaaliya isla markaana wax dhibaato aysan ka jirin horeyna dowladda dhexe ee Soomaaliya ay u geysay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaan ciidanka dowladda Djibouti iyo sidoo kale ciidamo isku jira booliis iyo sidoo kale nabad sugidda musharax Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka Galmudug ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay doonayso inay ku afduubato doorashada Galmudug ciidanka Itoobiyaanka ah ee shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug sidii dhacday doorashadii maamulka Koonfur Galbeed musharax Odowa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka fiirsato hanaanka xilligan ay ku wajahayso xaaladda Galmudug isagoo sheegay in ciidanka Itoobiyaanka ee halkaasi la geeyay aysan cabsi gelin doonin dadka deegaanka mudane madaxweyne waxa horey u aragtay warkaagii ayaa meel walba ku jira dhaqankaaga maanta aad cid walba way arkaysaa waxaan kula talin lahaa inaad isdaba qabato naba cabsi gelinayso ciidamada aad Dhuusamareeb ku sii daabulayso dadka reer Galmudug ma ahan kuwa la baqdin geli karo waxna looga xoogi karo ciidamada Itoobiyaan ah ayuu yiri musharax Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka Galmudug sidoo kale xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana laga soo doorto deegaanada Galmudug ayaa dhankooda aad uga soo horjeestay ciidankaasi iyagoo saacadihii la soo dhaafay daliil u jeedinayay dowladda dhexe ee Soomaaliya xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa beeniyay in magaalada Dhuusamareeb ay gaareen ciidamada Itoobiyaan oo ka tirsan howlgalka AMISOM xildhibaanka ayaa sheegay in ciidanka Itoobiya ay hore u joogeen magaalada isla markaana ay qayb ka yihiin ciidanka ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Galmudug aan la wadaago inaysan waxba ka jirin wararka lagu sheegay in Dhuusamareeb la geeyay ciidamada Itoobiyaan oo aan AMISOM ka tirsanayn ayuu yiri xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug laga soo doorto gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb sidoo kale waxaa jira dad badan oo dhankooda si aad ah maanta uga hadlaya gaar ahaan dadka deegaanka ee ku sugan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel sababta keentay in ciidankan oo gaadiidka dagaalka wata ay magaalada soo galaan isla markaana ay yihiin ciidamo aad u fara badan waxaana dadka deegaanka qaarkood cabsi ka soo wajahday arrintaasi iyadoo magaalada ay ku sugan yihiin hoggaanka sare ee ururka Al-Sunna wal Jamaaca oo isku khilaafsan yihiin siyaasadda lagu dhisay Galmudug dowladda dhexe ee Soomaaliya dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee magaalada Cadaado ayaa mar kale cadeeyay inaysan qayb ka ahayn dhismaha Galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb waxa garadkan maanta isugu yimid kulan magaalada Cadaado ayaa mar kale sheegay in hawsha ka socota Dhuusamareeb ee lagu dhisayo maamulka Galmudug inaanay ku sugnayn ama qayb ka ahayn dad matalaya dadka degan Cadaado iyo deegaanada ku dhow waxaana ay dowladda Soomaaliya iyo dhinacyada kale ee ku sugan Dhuusamareeb ugu baaqeen in aysan matalin dadka magaca Cadaado ku jooga magaalada Dhuusamareeb iyaga oo dowladda Soomaaliya eedan u jeediyay mid kamid ah odayaasha oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu yiri waxaan leenahay waxaan meeshaas u aragnaa waxa ka soo baxay waagii ina salaadboy yaa nin la oran jiray Darmaan wuxuu yiri waxaan rabaa madaxweyne marka madaxweynihii baa la yiri 7 casho inta la geeyay meel alberga kireystay buu yiri hal suu ka yimaado madaxweynaan rabaa 7 cashaan madaxweyne ku rabaa buu yiri markaas ummadii isugu timid lacagna waa bax mid baa hadlo wuxuu yiri hadii madaxweyne 7 casho lagu bixinayo lagu weelayo maxaa salooyinka loo raadiyaa waxa la yaabaa dawladana soo tashato tiri 7 cashaan dawlad ku dhisayna adeero anagoo reer xiban iyo xeeb 4 bilood baan u fadhinaa 4 bilood baan ku dhisaynaa 4 bilood 12 beelood ayadoo ka dhaxaysana waxa la yiri waxa lagu dhisayaa 7 casho wax la yaab la weey
haddii lagu dhisana dad nagama jiro haddaan lagu dhisana dad nagama jiro mana aqbali doono mana aqbalayno mana naloo jiro mana nala kugu maqnaa mid ka mid ah odayaasha reer Cadaado oo maanta kulan ay yeesheen ka hadlayay inaysan qayb ka ahayn shirka iyo hawsha lagu dhisayo maamulka Galmudug ee ka socota magaalada Dhuusamareeb wararka Galmudug hadaan intaas uga soo harno aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maanta waxa uu meel mariyay laba hindis sharciyeed oo aqalka maalmihii u dambeeyay ay ka doodayeen Cali Xasan ayaa warbixin ka hadlaysay inoo hay sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay maanta ansixiyeen hindis sharciyeedyada maamulka maaliyadda guud iyo kan shirkadaha oo ay hore u soo meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka ugu horeyn sanatarada ayaa akhrinta saddexaad waxay marsiiyeen hindis sharciyeedka shirkadaha kaas oo ay akhrinta koowaad iyo labaad ee hore u soo marsiiyeen gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha iyo isgaarsiinta golaha aqalka sare sanatar Cabdi Axmed Duxlow Dhegdheer oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sanatarada u akhriyay qodobada sharciga ku jira oo ay guddigooda wax ka bedel ku sameeyeen waxa uuna sanatarada ka codsaday inay sharciga ansixiyaan sanatar Samson Daahir sanataradu waxay soo jeedisay in qodobka 104 ogolaansho kala noqosho shirkad shisheeye faqrada koobaad la cadeeyo howlaha waa la qaatay guddiga ayaa qaabeeyay talada sidan howlo uu sharcigu u ogol yahay ayaana laga dhigay senator Xuseen Sheekh Maxamuud wuxuu soo jeediyay in sharciga lagu xuso dhowr qodob oo kala ah qodobka koobaad in sharciga la waafajiyo nidaamka federaalka loona kala qaado labada heer ee dawladeed ay leedahay dawladda Soomaaliya laguna xuso awoodaha heer federaal iyo heer dawlad goboleed sida diiwaangelinta shirkadda cidda awoodda u leh in ay diiwaan geliso taladan sharciga ayay ku dhex jirtaa qodobka lixaad ee sharcigan ayay ku caddahay halka shirkadda laga diiwaan gelinayo intaa kadib waxaa cod la geliyay sharciga sida uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sanatar Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo kulanka shir gudoominayay waxa la isiiyay 34 sanatar inay fadhiyeen 29 waxa uu codeysay 27 hal baa ka aamusay gudoomiyuhu isagoo cod male 27 u codeysay hal qof uu ka aamusay sidaasuu sharcigu sax ku yahay waad mahadsantihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo kulanka golaha goobjoog ahaa ayaa markii la ansixiyay sharciga kadib warbaahinta la hadlay waxa uu ka hadlay faa'iidada uu dalku u leeyahay sharciga runtii sharcigani wuxuu sahlayaa diiwaangelinta iyo maamulka shirkadaha sharcigani wuxuu xeerinayaa noocyada kala duwan ee shirkadaha saamilayda siyaasadda iyo xeer hoosaadka shirkadaha kala duwan lagu maamulo wuxuu fududeynayaa ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha wuxuuna fududeynayaa wax soo saarka dalka wuxuu kordhinayaa dhaqaalaha dalka wuxuu kordhinayaa ganacsiga iyo iskaashiga aan caalamka la leenahay sharciga la'aantiis runtii waa adkaanaysaa inaan heshiis ganacsi iyo iskaashi dhaqaale aan la yeelano dalalka aan saaxiib ka nahay gaar ahaan kuwa ganacsigu uu naga dhaxeeyo dhanka kale sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa akhrinta labaad iyo saddexaad isla maanta marsiiyay hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda guud kaas oo muran badan ka dhex dhaliyay golaha gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha iyo isgaarsiinta golaha aqalka sare sanatar Cabdi Axmed Duxlow Dhegdheer ayaa markale waxa uu sanatarada ka codsaday in sharcigan ay ansixiyaan faarlooyinka sanatarada golaha aqalka sare qodobka labaad farqadiisa saddexaad xigashada sharciga hanti dhowraha ee hore waa in la waafajiyo qodobka 11 sidaas ayay sax ku tahay maadaama qodobada la xigtay ay yihiin qodobo ku qoran sharcigii hore ee hanti dhowraha qodobka saddexaad ereyga koox waxaa lagu bedelay qayb sidoo kale dadka waxaa lagu bedelay bulshada 59 dowlad goboleedyadu kama hadlin
mana tix raacayo heshiiska baydhabo wuxuuna ku lifaaqan yahay sharciga batroolka. habraaca miisaaniyadda dowlad goboleedyada xeer nidaamiye ayaa lagu nidaamin doonaa waxaana lagu afeeftay qodobka 6 farqadiisa 3 oo dhahaysa labada heer ee dowlad goboleedyada. qodobka 21 waxaa lagu daray xeerka qoondada waxaa ansixinaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qaar ka mid ah sanatarada ayaa waxa ay dalbadeen in sharciga ansixintiisa dib loo dhigo oo aan la dejin, halka qaar kalena ay dalbadeen in la dedejiyo. arrintaas ayaana mar badan ka dhex dhalisay golaha. intaa kadib waxaa cod la geliyey sharciga si loo ansixiyo, waxaana u codeeyey 29 sanatar, waxaana ka aamusay 1 sanatar sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sanatar Cabdi Xaashi Cabdullaahi. waxaa codeeyey 30 xubnood, 29 way ogolaadeen, 1 xubinna waa diiday. sidaas ayuu sharcigani ansax ku yahay. aad iyo aad baad mahadsantihiin. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa uga mahadceliyey sanatarada golaha aqalka sare sidii ay u dedejiyeen ansixinta sharcigan. maxaan idhaa talow farxad weyn bay ii tahay in xil weyn iska saarteen sharcigan oo meel weyn gaarsiin doona dalkeena. runtii waxa weeye sharciga horaad u hadasheen, aniguna markii hore waan isku dayay inaan ka hadlo. waxa weeye hooyada shuruucda maaliyadda weeye, wax walba kana soo hoosgeliya. marka aanbareeladii baad ansixiseen, waxaa laga yaabaa inaan kuwa kaloo iyaga hoosgelaya dhawaan idin keeno. sharciga waa la sugayey, saan idiin sheegay. shaqo weyna waa ka qabateen, mas-uuliyad wadareed baa qaadateen, mas-uuliyad xoog laa qaadateen, xil baad iska saarteen. xilligaas ayaa qadalaadiin. waxaan u malaynayaa waxa weeye wax dalkeenna u tirsan waxa aad maanta qabateen. mar dhow baan u dirayaa qolooyinkii doonaya odhanaya labadiiba waa la ansixiyey. codkaasi waxa u dambeeyey warka waryaheena cali xasan. booliiska somalilan ayaa maanta waxa ay magaalada hargeysa ka bilaabeen howlgal ay ku qabqabanayeen dad ka soo jeeda qoomiyadda oromada. booliiska somalilan ay saaka bilaabeen in ay qabqabtaan qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya, kuwaas oo siyaabooyin kala duwan magaalada hargeysa u jooga. ciidanka booliiska oo gaadiid waaweyn wata ayaa howlgal waxa ay saaki ka bilaabeen xaafado ka tirsan magaalada hargeysa. ciidanka waxa ay amar ka haysteen laanta socdaalka ee Somaliland, waxaana howlgalkaas uu ahaa mid lagu qabqabanayo dadka Itoobiyaanka, gaar ahaan kuwa oromada ee ka dhex shaqaysta suuqyada magaalada hargeysa, iyada oo sidoo kale lasoo sheegayo in dadka la qabtay qaar ay ahaayeen kuwa xarumo ganacsi ku leh magaalada oo ay og tahay dowladda. markii ugu horreysay ma ahan oo howlsha noocan oo kala ama howlgalka noocan oo kala ah ay sameeyaan ciidanka booliiska, kuwaas oo dadka oromada ah lagaga masaafurinayo magaalada hargeysa. tallaabadan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa maalin uun ka hor markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faysal Cali Waraabe uu sheegay in Itoobiya ay wado damac dhinaca isballaarinta ah oo ay kusoo fidayso deegaanada Somaliland. taasi uu sheegay in ay muhiim tahay in maamulka Somaliland uu feejignaan dheeraad ah ka sameeyo. laanta socdaalka ee hargeysa weli ma aanay faahfaahin sababta howlgalka, laakiin ila ku sugan hargeysa waxa ay xaqiijinayaan in howlgalka uu yahay mid la doonayo in dadka oromada ah kuwooda aan sharciga ku joogin deegaanada Somaliland in laga masaafuriyo deegaanadaasi, dibna loogu celiyo dhulka ay ka soo jeedaan ee Oromiya. markaas fiidnimo wuxuu kaga imaanaya idaacadda risaale magaalada muqdisho. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay weerareen dhowr bartilmaameed oo Xamaas ay ku lahaayeen waqooyiga Gaza subaxnimadii hore ee maanta si ay uga jawaabaan gantaalo lagaga soo tuuray Gaza.
diyaaradaha dagaalka Israa'iil iyo diyaaradaha ayaa duqeeyay bartilmaameedka Xamaas ee waqooyiga Gaza xarun militarina waxa ay ka mid ahayd goobihii la duqeeyay iyada oo laga jawaabayo gantaalo la sheegay in laga soo riday dhinaca Gaza jimcihii shalay sidaasna waxaa warbaahinta u sheegay afayeen u hadlay ciidanka difaaca ee Israa'iil bayaan ka soo baxay ciidanka difaaca Israa'iil ee loo soo gaabiyo IDF waxaa lagu yiri waxay u aragtaa Israa'iil nooc kasta oo hub ah oo lagaga soo rido Gaza in ay kaga jawaabaan madfac ama gantaal waxaana sii wadi doonaa howlgalkeena ka dhanka ah Xamaas ee ka socda Gaza haddii aan la joojin gumaadka rayidka sida uu yiri afayeenkaasi bayaanka afayeenka uu akhrinaya ayaa sidoo kale lagu xusay in Xamaas ay mas'uul ka tahay wax kasta oo ka dhaca marinka Gaza isla markaana ay ka baxday heshiisyadii xabad joojinta waxaana ay sheegtay Israa'iil in ay Xamaas qaadi doonto cawaaqibka dhammaan falalka argagixiso ee ka dhanka ah shacabka Israa'iil